qofka xaaskiisa وحاسكيسا وي وينو لا عيارا وي waxay ku qanacayso oo maartay macquul inuu sameeyo way sawirada markaan galayay xaaskayga la galay laakiin lama gal adduunka lagu faafiyo waxa faafiyana waa cadawi waana xasad way sida awgeed walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in sawirada la faafiyo oo maartay la yiraahdo laba kun iyo sagaal iyo tobankana gabar buu guursaday 2020 gabar buu guursaday eeg fiiri dhagayso bal fiiri walal si fiican u fiiri saddexdaas sawir ee meesha ku qoran waxaan rabaa inay ummaddu ay fahanto waa sawirkaas waa gabar muslimada oo ku guursaday magaalada Garowe in badan oo kamida saxaafadda waxaa la yidhi waa gabar indhalayd oo sheekha uu daweeyey xulliwad maqashay koobitiyaal fara badan baa ka bixisan weligeedna ma indha beelin weligeedna quraan aniga mabas hadda markaa aan guursanayo ka horna quraan ma saarin gabadha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa calaf iigu daray haddana insha allahu tacaala waxaa weeye sawirkii ay hore kan ka horreeyeyna wallaahi oo billaahi oo tollaahi waa laga xaday gabadha eeg maxaa la yidhi marka 19 gabadhaas uu guursaday okay haye 20 gabadhaas uu guursaday mawjada waa 20 baa ku qoran waa isla gabadhan wayogo gabadhan iyo gabadhan hal mid way walaalayaal hadda fiiri gabadhaana gabar kale laga dhigay gabadhaana gabar kale laga dhigay sidaas ma aha labada gabdhood waxay isku yihiin hal gabar bay isku yihiin waxaan rabtaa inaan cadowga u sheego magaceeda salma jaamac dhaga dheera la dhahaa waa xaaskayga wey xaaskayga ayuu ilaahay ka dhigay markaana waa ayada wey sidaa awgeed walaalayaal gabadhaas sawirkaan la galay kolley haddaad qabto qof dhalinyaro ah waa inaad la dhalinyarayso wey waa ina waxay ku qanacaysa aad samayso hal culuna way haysaa uurna way leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala farxaddan ayadaan ka faraxsiinayay ayuu maaragtay sawirkaasi ku dhacay marka waxaa dhacday taleefonka inay meel geysato laga qaato maarata taleefonkeedii isagoo meeshii jiraan sawirada lasoo faafiyo marka waxaan oran karaa waa xasad wey gabadhaan labada qof laga dhigayna hal qof wey ilaahay baan ku dhaartay wallaahi oo billaahi oo tullaahi salmo weeye gabadha kalena waxaa lahaa asma waxay degan tahay reer burco wey qof walbana waxaa weeye wuu garanaya inay xaaskayga tahay oo aan hadda guursan haddaba la soco qaar baa waxay leeyihin nisanaduba naag buu guursanaya waa mashquul qofka lagu mashquulay wey marka ma oranayo waa maxay waa xasadkii weeyaan kuwii ilmahayga afduubtay ee xabadda igu riday ee ilahaa waa saaxir kuwaas weeye eeg shayaadiinta kufriga ah wuxuu iga dhigay ilaahay miduu ilaahay ku jibiyey kuwa jinniga ah ee dadka muslimiinta jirkooda ku jira ilaahay wuxuu iga dhigay miduu ilaahay ku jibiyey kaasi waa ka adkaaday xaqiiqatan laakiin ninkan sheeganaya inuu yahay nin muslima ee maaragtay salaada dukanaya waa maxay waxa haya ma shaydaanka jinnigu mas-uul ka yahay waa maxay qofka maalin walba iska xamanaya waa maxay kuwa sawirada ka xadaya bal ka waran qof taleefon loo geeyay farsamo haddana xadaya walaalaya marka waxaan rabaa dadka muslimiinta inay ogaadaan kani waa kitaabka ilaahay wey ma aha waxaan u dhaaranaya maaha munaafiqiinta ma aha mujrimiintana ma aha kani waa kitaabka ilaahay wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaanan shaqo ku lahayn sawiradaas meesha lasoo dhigay inaanan ogeyn goor lasoo dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iga markhaati ah waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya oo igu tallaahiya talaadadii in ilmahayga shanta gabdhood een dhalay in la afduubtay inay habeenkii oo dhan maqnaayeen in subaxii dambe lasoo helay
ayaa igu wallaahi igu bilaahi igu tallaahiya waxaan marka u sheegi waayey oon qadka u soo geli waayey waxaan istiri iska daa qadka ha gelin eeg dagaalka la igula jiro ma aha mid yar ma aha yaa igula jira marka waa shayaadiin wey waa shayaadiin weeye anigana waxaan kula jiraa dagaal aan dhammaanaynin ciziga iyo sharafta ilaahay baa bixiya daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallaahu dulfadli alcadiim iska daa sawiraan naagteeda dhunkanaye anoo dhuuqaya haddaad soo heshana soo dhig youtubeka soo dhig oo facebooka soo dhig waxaa ayaan darra ah ragga meediyaa ka shaqeeya adeer waa laga fiican yahay culmaa inaad ku mashquusho aad warkiisa jajarta waa laga fiican yahay inaad qayb dulmiga ku heshiisay adiga aad maaragtay u noqoto maaragtay hormuud waa laga fiican yahay haddaba ogow midka xasadka ah ogow saaxirka ogow wadaad xumaha najiska ah ee daalimka ah haddaba ha ogaado shaqadan aan wado ilaahay baan u hayaa shaqadan hayana ma aha mid sawir la soo dhigay ku soo gabagaboobaysa ma aha ma kuugu dhaartaa kitaabka inaanan shaqadan joojinayn yaa waa kugu dhaaranaya haddana dhegayso wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaanan shaqadan ilaahay aan u hayo ee ilaahay ugu ilhaamiyey hadday 30 cunug baan leeyahay ilmahaygu waa 30 dhegayso 30 caruuraan leeyahay haddii 30ka qoorta laga jarayo wallaahi baana qur-aankan akrinaya joojinaynin war hadaalin war iska daa sawiraa soo dhigtay iska daa yaa war iska daa waxaa iska daysaa wax kale iska daa shaqadan ilaahay igu ilhaamiyey ee khayrka badan ma dhaafi doono qof walba ha ogaado war ogow shaqadan waa shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala igu toosiyey saan ugu tooseena ugu toosnaanayaa ilmaha iyo guriga iyo sawiradeeda ka daba warwareeg adiga hooyadaa hadday nin raga dhasho hooyada oo aad nin raga tahay adeer aniga maa ii timaadid oo adiga ilmaha kuna noqonaye aniga maa ila hadashid aniga maa wax iga qaadid igama qaadi kartid de waxaan rabaa dadka muslimiinta inaan ogeysiiyo dagaalka wax kale kuma socdo shaqadan ka fariiso hal mar layma dhihin oo mar labaad layma dhihin oo mar saddexaad layma dhihin mar afaraad layma dhihin mar aan la tirin karin layma dhihin walaalaya yaa waa lay nasteexayna nasteexo wadaaddaa iga imanaya yaa sheekh haddee waxaan kaa codsanaynaa maaragtay inaa maaragtay jinniga lama daba ordee inaa iska daysid yaa hadalla aan idiin sheegi karina way jiraan walaalayaal wax badan oo qalina ayaa jira in ka mid aan idiin sheegay marka qofka muslimka ee caawa aan la hadlayo hal midaan kaa codsanaya oo keliya eeg bal dib ugu noqo markaan shaqada soo bilaabay dhibkii iga gaaray iyo waxaan soo maray iyo halkaa maanta marayo maanta waxay maraysaa in awlaaddeedii la afduubto waxay maraysaa in sawirro loogu talagalay in sharafteyda ilaahay baa sharafta fiiri daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa kani waa fadli ilaahay bixiyey weeye cidduu doono ilaahay siiya lama dhihin wacdada la siinaya lama dhihin waranla la siinaya laakiin ilaahay muxuu yidhi ciddaan doono adeer ilaahay baana siiyey adeer ilaahay baana siiyey qasab ma aha inaa adiga maaragtay aad dadka ku mashquusho sidaa awgeed walaalayaal waxaan ka codsanaya dadka muslimiinta ilaahay inay ii soo baryaan oo yidhaahdaan ilaahu ninka hadduu xaq ku taagan yahan ilaahu guule baadil hadduu wadan ilaahu ummadda ka qabo bas yaa billaahi calaykum ka warrama intee comity laga bixiyey intee dadka ugu mashquuleen waa maxay yaa waxaan aaminsanahay fadliga ilaahay siiye maanta kuwa diidan inay arrinta ayadaa ka dambeeyaan ogow kuwa ilmahayga afduubtana wallaahi oo billaahi oo tullaahi waa cafiyey malka warrama kuwa ilmaha yarka iyo istabal billaahi calaykum qoligar la afduubtay oo aan waxba kala garanayn 3 jir baa wallaahi oo billaahi oo tullaahi ugu yar ilmaha oo maalinta dugsiga u raacday ay 10 jirna waa ugu weyn war maxay galabsadeen yaa waa ha ordo soma ha ordo ilaa iyo aqro hasi ordo la shan gabdhood waxaa hadda adiga aad afduubatay laakiin 15 kale gabdhaha aan dhalay
iyo 10 wiil oo dhalay haddaad gowracaysana shaqada ma joojinayo ilaah waxaan kaa baryayaa hadday arrinta ilaahow dartaa iga tahay oo aan ilaahow rabbi oo ikhlaasay shaqada iga tahay ilaah waa ku baryayaa qalbigayga ilaahow ii nadiifi wax kale maahe waa qalbiga ka wasaqoobo tuftiis ilaaha aqbali waayo haniyadda ha ka jabo laakiin laa wallaahi laa ya ilaahay baa mahadda iskale markaa qof walba muslim waxaan ka codsanayaa ilaahay dartii inuu igu soo duceeyo walaalayaal waa laygu mashquulay si baan baana laygu mashquulay laakiin ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala qofkii ilmahayga afduubtay ilaahay dartii baanu caafiyey allah ha soo hanuuniyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa in maaragtay qalbiga kuwaas gartay ilmaha yararka inay habeen soo haystaan oo maaragtay gurigooda ay ka dhexiyaan oo maaragtay si qalanqalana ilaahay subxaana wa tacaala ilmaha ay ku ridaan weligood ilmahayga waxaysan ka soo kabsanaynin afduubka loo geystay noloshooda ma iloobayaan marka insha allahu tacaala walaalayaal allah idin barakeeyo kuwa dhahaya 19 naag buu guursaday 20 naag buu guursaday wara walaalo ilaahay ka baq oo dadka qof lagu mashquulo waxaa u daran qofka culummada ah waa kula talinayaa waxaa tahay youtuber baa tahay ama facebook laa tahay wax fiican oo muslimiinta dadka ay kaa dhageystaan sheeg ma aha inaad tiraahdid war waxani aniga raalli kama yihi waxaan ugu talagalay maadaama laygu qasbay oo xaaskaygii iyo carruurtaydii ay raalli ku yihiin in taleefanooda ay ku haystaan markii farsamo la geeyana waa lala baxay anigu ma u malaynayo in maaragtay arrintaa iyada ay saas tahay gabadha kaleo garowa deganna wallaahi wabillaahi oo tallaahi inaysan waxba ka ogeyn kitaabka waxaan u soo qaatay muslimiinta inaan ku qanciyo yaa ayuhal munaafiq adiga ha qancina weligaaba ha qancin adigu ilaahay baa ku sheegay fi darki alasfali min annaar inaad tahay naarta midda ugu hoosaysa inaad degayso munaafiqiintaan la hadlaya marka walaalahayga muslimiinta waxaan leeyahay sawirada aniga raalli kama yihi waana soconaya dagaalkan waas ilaa aan ka dhintana waa socon doonaa ilaa aan ka dhinto wuu socon doonaa insha allahu tacaala khayr badan allah idin siiyo walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah idin barakeeyo aad iyo aad waad mahadsantihin walaal maa sha allah